Asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 211aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku. Daawadayaal jawaabta su'aashan diblomaasiyadeed ee maalinimadii shalay waxay noqonaysaa sidii intiina badaniba aad kaga jawaabteen. dalkii ugu horreeyay adeegsada lacagta warqadaha ah waxa uu ahaa dalka Shiinaha. su-aasheena diblomaasiyadeed ee maalinimada maantana waxay noqonaysaa daawade kuma uu ahaa hogaamiyihii ka badbaaday dilalkii ugu badnaa ee la isku dayay in lagu khaarijiyo. fadlan su-aasha jawaabteeda nagula wadaag qaab commentiya mahadsanid. taliya sare oo ka tirsan ciidamada Ukrainiyiinta waxa uu sheegay ciidamada Ukraine inay qorsheynayaan inay dib uga qabsadaan ciidamada Ruushka 1200 square kilomitir. dhulkaas ayuu sheegay gebi ahaanba inuu ku yaalo gobolka waqooyi bari ee dalka Ukraine ee Kharkiv. gobolkaas ayaa ahaa gobolkii indhawaalaba ciidamada Ukrainiyiinta ay ka sheeganayeen guulo kala dambeeyay. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka Sergei Shoigu waxa uu sheegay in lagaga laayay gudaha dalka Ukraine ciidamo tiradoodu ay dhaafayso 5937 askari. waa markii labaad ee dowladda Ruushku inala wadaagto inta askari ee kaga dhintay gudaha dalka, halka Ukrainiyiintu ay sheegayaan inay laayeen ciidamo ka badan 50,000 askari oo Ruusha. balse sheegashadaas ayaana Ukrainiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka wax caddayn soo bandhigin. dowladda Uzbekistan waxay uga digtay dadka u dhashay dalkeeda inay u safraan dalka Ruushka kadib markii madaxweynaha Ruushka uu ballan qaaday cid walba u dagaalamaysa inuu siin doono lacag $3,000 bishii. madaxweynaha Ukrainiyiinta Volodymyr Zelensky oo ka hadlayay kulanka loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inaan adduunka looga baahnayn inay ku daawadaan dulmiga dowladda Ruushku ay ku wado dalkiisa. waxa uu ka codsaday dowladaha adduunka inay ciqaab adag dul dhigaan dowladda Ruushka. sidoo kale waxa uu dowladaha ka codsaday in la abaabulo maxkamad cusub oo lagu qaado arrinta Ruushka. waxa uu kaloo ka codsaday madaxweynahaas gebi ahaanba Ruushka in laga qaado codka diidmada qayaxan uu ku leeyahay golaha ammaanka. dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa isdhaafsaday maxaabiistii ugu badnayd. waxaa la xaqiijiyay inay isdhaafsadeen dad tiradoodu ka badan tahay 300 oo qof. dadkaas ayaa la sheegay inay ku jiraan dagaalyahamo shisheeye oo u kala dhashay dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Morocco. tan ayaa noqonaysa isdhaafsigii ugu badnaa oo ay sameeyeen labada dowladood 7 bilood oo ay dagaalamayeen. booliska dalka Ruushka waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen dad ka badan 1300 oo qof. dadkan ayaa sameeyay dibadbaxyo aad u waaweyn kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in uu ciidamo hor la heegin gelinayo. dalal ay ka mid yihiin dowladaha Latvia iyo Finland waxay sheegeen inaanay qaabilayn gebi ahaanba qaxooti u dhashay dalka Ruushka kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu sheegay inuu heegin gelinayo ciidamada kaydka ayay dowladahaas waxay sheegeen inay jiraan askar kayd oo doonaya inay iskaga baxsadaan dalka. sidoo kale dowladaha reer galbeedka waxay sheegayaan tigidhka halka wajiga laga gadanayo gudaha dalka Ruushka marka ay noqoto dhanka diyaaradaha inuu qaali noqday, ayna halkaa jiraan dadyow badan oo askar oo ka cararaya inay dagaalka ka qayb galaan. madaxweyne Vladimir Putin ayaa maalinimadii shalay ballan qaaday inuu dagaalka gelin doono 300,000 oo askari oo hor leh. dowladda Shiinuhu waxay u soo jeedisay dalka Ruushka inay arrinta wada hadal ku dhameeyaan. dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa gebi ahaanba iska fogeysay eedeynta dowladda Maraykanku ay ku eedeysay in dowladdaasi ay hub siinayso dowladda Ruushka. waxay sheegtay inaanay ilaa ay hadda jirin wax hub oo ay siisay dalka Ruushka. sidoo kale gebi ahaan aanu jirin codsi ka yimid dowladda Ruushka oo ay kaga codsanayso hub waqooyiga Kuuriya. kooxaha Ukrainiyiinta ee taageersan dowladda Ruushka ayaa iyagu 23 bisha ilaa 27 bisha ballan qaaday inay goboladooda afti ka qaadi doonaan. aftidaas ayay dadyogooda ku weydiinayaan inay gebi ahaanba ku biiraan Ruushka. gobolada aftidan ka dhacayso ayaa daawada waxay kala yihiin gobolada Luhansk, Donetsk, Kherson iyo Zaporizhia. dhulka ay ku fadhiyaan ayaa waxa uu yahay 15% dhulka dalka Ukraine, waana dhul la-eg gebi ahaanba dhulka ay ku fadhido dowladda Hungary. madaxweyne Volodymyr Zelensky ee Ukraine waxa uu sheegay inaan adduunku ogolaan doonin in Vladimir Putin uu adeegsado hubka nukliyeerka ee uu ku goodinayo. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushku maalin walba uu ku goodiyo ugu dambeynta inuu isticmaalayo hub nukliyeer taasuna ay tahay arrin wadata khatarteeda loona baahan yahay in laga digtoonaado. sidoo kale madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay hadallada afka madaxweyne Vladimir Putin ka soo baxaya inay yihiin hadalla aanu ku hadli karin qof mas'uul
madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan nukliyeerada waxa uu sheegay inaanu weli ka quusan inuu sugo nabadgelyada xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia, iyadoo weliba dowladda ruushku ay ballan qaaday 23 bisha inay gobolka gebi ahaanba afti ka qaadayso dhulkeedana ku darsanayso. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub waxay ballan qaadeen inay ku soo rogayaan dowladda ruushka cunaqabatayno hor leh, sidoo kalena ay dedejinayaan hub ay la gaaraan dowladda Ukraine. dowladda Jarmalku waxay sheegtay inay shirkado qaran ka dhigayso labada shirkadood ee ugu waaweyn ee hore gaaska uga soo dejin jiray dalka ruushka. dowladda ayaa isku dayeysa inay maarayso baahida gaaska ay u qabaan dadkeedu. dowladda ruushku waxay sheegtay in lacagteeda awooddeeda ay dib u soo noqotay kadib 2 bilood oo lacagtoodu hoos u socotay, waxaana halka ka dareemaysaa inay jiraan dowlado badan oo weli ku qanacsan inay dowladda ruushka ganacsi la sameeyaan. daawadayaal, intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa xogaheenu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta oo ay ahayd maalintii 211aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku. dabcan wixii xogaha kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka like gareeya, sheer gareeya oo la wadaaga asxaabtiinna. ilaawina like-tiina iyo sheertiinnu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo idinka timid. sidoo kalena waxay kor u qaadaysaa muuqaalka. ku xirnaada kanaalka. mahadsanidin.